السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalayaal haddii aad ugu cusub tihiin please subscribe-ka ii saara. Waxaan ku dhahay warbixin iyo calool xumo iyo xanuun ayaan idin wada caawa. Marxumadan waa wada taqaaniin kiiskeedii dadkii dilka ka dambeeyay aan rabaa inaan idinla wadaago. Soo dhawaada dhammaantiina. Horta Ilaaha u naxariisto hooyadan iyo gabdhaheeda oo lagu dilay Kenya, dilka xanuunka badnaa oo foolxumada badnaa oo Soomaaliya oo dhan waxaan ku dhahay ka wada danqatay. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun aan leeyahay. Marka intaas laga soo gudbo yacni waxa dhibaatadan dhan geystay aniga markii hore waxaan u maleynayay Kenyaatiga waxaa isdhahayay wallaahi wal badan horta aan xagga oo nolosha Soomaalida ku nool Kenya aan kaga fikirsanaa ani ahaanteyda isdhahay see ku noolaan doonaan maanta haddii 3 la dilay bari haddana kuwo kale la dilo. Waxaa u maleynayay wax oo la ugaarsanayo oo ugaarsi Soomaalida lagu bilaabay, laakiin kiiska sida aniga u maleynayay iyo sida adinka u maleynaysiinba ma ahano. Waxa falka geystay waa dad Soomaaliyeed, waa dad waxaan ku dhahay maxaa la dhahay la yaqaano. Waxaan ku dhahay kiiska foolxumada badan waxaa geysatay naag lala qabay maamadan oo ahayd bahweyntaasoo ku nooleed wadanka Ingiriiska. Maxaa la dhahay ninkeedan uu ku noolaa wadanka Mareykanka. Ninkii ayaa maamadan ku guursaday wadanka Kenya. Ma aqaan labada gabdhood inay asaga u dhashay, laakiin 14 sano isqabeen. Kolley gabadha mida 14 jir ay dadka isdhaxwadeen. Labada gabdhood ayadaa dhashay. Maamadii oo maxaa la dhahay Ingiriiska degneed ayaa maxaan ku dhahay markay maqashay in maamada process loo bilaabay oo Mareykanka maxaa la dhahay yacni in uu ninka rabo inuu Mareykanka u ka haysto oo arrimaheeda uu ka shaqeynayo. Intay soo baxday waxay degtay nafsi gurigii ay islaantan degneed ay soo degtay ayadoo qof dalxiis u imaaday iska dhigayso si ay qoftaan xaaladeeda ay ula socoto. Kadib maxaa la dhahay markay meeshii soo degtay ay isbarteen maamadii ay wada sheekaysteen ay ogaatay qoftaan qof oo yacni maasha Allah yacni dadka oo maxaa la dhahay Kenya meelaha iska joogo iska faraxsan yihiin, noloshooda yartaa way iska qanacsan yihiin. Maamadan wax ganacsi ay ka shaqeynaysay xitaa ma lahan, laakiin processkeeda iska sugaysay iyo ninkeeda maxaa la dhahay howlihiisa iyo waxaas. Marka naagtan waxay baratay ninka taksiilaha ahaa oo maamada markasta kaxeyn jiray ayay baratay. Ninkii ayay la heshiisay waxay dhahday waxaan rabaa qoftaa inaad qaarijisid, waxaan ku siinaa $10,000. Okay u dhahay ninkii wuu ka aqbalay $10,000 ee telefoonkii akoonkiisa ugu shubtay. Markaas kadib maamadii maalinta dambe ballan oo dhakhtar ay lahayd, ballantii dhakhtarka ahayd ilaan taksigan bes ayay raaci jirtay oo markasta asaga qaadi jiray. Taksiga wactay wuu qaaday, markuu qaaday maba soo noqoninba. Wuu horay niman Kenyaati u dhiibay waa la qaarijiyay qashinka oo wadooyinka la iskaga tuuray. Kadib waxaa dhacday marka gabdhihii ogaadeen in oo maxaa la dhahay oo hooyadood yacni taksigaas ay raacday iyo waxaas dhan asagii waceen. Markaas uu dhahay hooyadiin waa xanuunsantaa waa tacbaan, haddaa rabtiin kaalii soo baxa hooyadiina soo wada. Gabdhihii asaga leh haddana soo doonay niman kale intuu soo watay isla asagii ayaa soo doonay. Markuu soo doonay wuxuu ka cabsaday, wuxuu is dhahay gabdhahan intee maxaa la dhahay ay ku dacweyn yacni inay dacweeyaan oo maxaan ku dhahay arrintii oo lagu ogaado ka cabsaday. Wuxuu is dhahay gabdhihiina qaariji. Gabdhihiina sidii ayuu ku qaarijiyay. Waxaaba la soo ogaaday gabdhihii markii ugu dambeeyay ay maxaa la dhahay buildingka ka soo degayeen ayagoo maxaa la dhahay ninka magaciisa hadal hayaan iyo wixii dhan iyo kaamirada CC kaamirada ee duubtay ayagoo baabuurka raacay wixii dhan la helay. Maxaa la dhahay arrintii way fashilantay. Hadda waa la soo ogaaday naagta bahweynta ahayd oo lala qabay in ay falka ka dambeyso. Horta aadan ugu xumahay yacni maxaa la dhahay qof 14 sano la qabay in maanta waxaa ku dhahay falka noocaas ah xaasidnimo waay ee kula kacdo. Yacni maxaa la dhahay qoftaa intay bixi lahayd ay nolol heli lahayd ee waxaas ay ku fikirto kulley bini aadan waay, laakiin waa wax laga naxo. Maxaa la dhahay waxaan kula talinayaa reeraha isqabo horta Ilaahay dumarka Ilaahay looga baqo, ragga dumarka Ilaahay uga baqaa idin leeyahay. Dumarada meelaha kala dejinaysaan oo tirada badan la aad guur